Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Geymiska ama ciyaaraha lagu ciyaaro taleefannada iyo kombiyuutaradu waxay qayb muhiim ah ka noqdeen nolosha dunidan casriga ah, iyagoo dadku ay u ciyaaraan inta badan inay waqtigooda ku qaataan. Laakiin sidoo kalena waxay noqon karaan wax lacag laga sameeyo, ama ha looga sameeyo tartamada caalamiga ah ee loo qabto ciyaaraha, ama ha looga sameeyo in YouTube iyo baraha bulshada lagu upload gareeyo, sidaasna lacag looga sameeyo. Muuqaalka maanta insha Allah waxaan ka hadli doonaa macluumaad laga yaabo inaad markii ugu horreysay ka maqasho ciyaaraha. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Ciyaaraha aan ka hadli doono waxay noqon doonaan ciyaaraha elektarooniga lagu ciyaaro, ama kombiyuutar ha lagu ciyaaro, ama taleefan ha lagu ciyaaro. Ma noqon doonaan ciyaaraha kale ee sida caadiga ah loo ciyaaro. YouTube, bartaas bulshada ee muuqaalada lasoo dhigo. Muuqaalada lasoo dhigana ay wax walba ka kooban yihiin waxyaabo badan oo kala duwan. 40% muuqaalada lasoo dhigo waa games. Gamekaasu noocay doonaan ha ahaadaan. Si aad u fahantaan haddaan idin soo dhaweeyo fikirka, haddii lasoo dhigo YouTube 100 muuqaal, 40 muuqaal oo ka mid ah waa game ama waa ciyaaro. Ciyaarahaas noocay doonaan ha ahaadaan, ama kuwa kombiyuutar lagu ciyaaro ha ahaadaan, ama kuwa taleefan lagu ciyaaro ha ahaadaan. Waxaa la daawaday muuqaalada gameska sanadkii lasoo dhaafay YouTube oo keliya 100 bilyan oo saacadood, number aad iyo aad u weyn. Sidaas darteed, dadka soo gudbiya ciyaaraha ee YouTube-ka kusoo gudbiya waa qaar ka mid ah dadka ugu shacbiyada iyo subscribe-ta badan YouTube. Qofka saddexaad ee YouTube ugu subscribe badan waa PewDiePie. PewDiePie waa gamer, wuxuuna ahaa muddo dheer qofka ugu subscribe-ta badan YouTube. Laakiin hadda waxaa ka koreeya oo isaga ka sarreeya 2 channel. Channelka ay leeyihiin Hindidu ee T-Series iyo channel kale oo heesaha carruurta lagu soo gudbiyo oo lagu magacaabo Cocomelon. Halka isaga PewDiePie oo haysto 110 milyan oo subscribe. Sidoo kale kanaalada YouTube-ka ee gameska ama ciyaaraha soo gudbiya ee 100,000 oo subscribe kor u dhaafay waa 80,000 oo channel. Halka game-ka loogu daawasho badan yahay YouTube sanadkii lasoo dhaafay, 5 ugu horeyda ay kala ahaayeen game-ka lagu magacaabo Minecraft, game caag iyo waxaas ah. Kan labaadna wuxuu ahaa Fortnite, Grand Theft Auto ama GTA 5 sida u taqaano, Free Fire iyo Roblox. Haddii aan kala qaadno daawashadooda iyo saacadaha la daawaday, game-ka ugu horeeya waa Minecraft. Minecraft YouTube waxaa laga daawaday sanadkii lasoo dhaafay 201 bilyan oo saacadood. Halka game-ka labaadna uu yahay Roblox, isagana waxaa la daawaday 76 bilyan oo saacadood. Game-ka saddexaad waa Free Fire, isagana waxaa la daawaday 72 bilyan oo saacadood. Game-ka afaraadna waa GTA 5, isaga waxaa la daawaday 70 bilyan oo saacadood. Halka game-ka shanaadna uu yahay Fortnite, isagana waxaa la daawaday 68 bilyan oo saacadood. Shirkadda Rockstar Games oo ah shirkad Mareykan ah waxay sameynayday game-ka caanka ah ee GTA 4 4 sano, wuxuuna soo baxay 2008. Halka 5 sanana ay sameynayday game-ka GTA 5, isna wuxuu soo baxay 2013. Laakiin GTA 6 ilaa hadda sooma bixin, waxay sameynayaan 12 sano, waxayna sheegeen inuu soo bixi doono 2025. Game-ka GTA 5 waxaa la sameeyay 2013, waxaa lagu qarash gareeyay 300 milyan oo dollar, lacag aad iyo aad u badan. Laakiin lacagtiisa wuxuu ku soo xareeyay 3 maalin ama hal maalinba waxaan dhihi karno. Markii la soo fasaxay game-ka GTA 5, maalinkii ugu horreeyay wuxuu keenay 300 milyan oo dollar, ama 3dii maalin ee ugu horreeyay wuxuu keenay 1 bilyan oo dollar. GTA 5 laga bilaabo 2013 ilaa hadda 2021 wuxuu soo xareeyay lacag dhan 7 bilyan oo dollar. Sidaas darteed, GTA 5 waa mashruuc elektarooniga nooca doonaba ha ahaado, ciyaaro, filimaan, wax kasta ha ahaado, waa midka ugu guusha weyn ee 100% guuleystay marka loo fiiriyo dhaqaalaha ku baxay iyo dhaqaalaha uu soo xareeyay. Tusaale ahaan haddaan filimaanta barbar dhigno, filimka dhaqaalaha ugu badan taariikhda lagu bixiyay waa filimka Pirates of the Caribbean ama burcadbadeedii gacanka Caribbean-ka. Filimkaas waxaa ku baxday 380 milyan oo dollar, laakiin wuxuu soo xareeyay 1 bilyan oo dollar. Halka GTA 5 markii lagu bixiyay 300 milyan oo dollar, uu soo xareeyay 7 bilyan oo dollar 7 sano uu jiray. Maadaama aan ka hadlayno gameska, waxaa laga maarmaan ah inaan soo qaadano gameska loogu iibsi badan yahay koobiyadooda taariikhda. Waxaan soo qaadan doonaa 5 game ee taariikhda loogu iibsi badan yahay koobiyadooda, ama canjaladooda si caadi ah loo iibsado ama si online ahaan ah loo iibsado. Kaalinta shanaad waxaa fadhiya game-ka PUBG. PUBG waxaa la sameeyay 2017, waxaana sameeyay shirkadda PUBG, waxaana la iibsaday ilaa hadda 70 milyan oo koobi.
halka kaalinta afraad uu ku jiro game lagu magacaabo Wii Sport. Wii Sport isagu game caadi ah oo kaligiisa ma ahan, laakiin waa cajal games badan oo ciyaaraha ay ku jiraan. wuxuu soo baxay 2006 waxaana sameeyay shirkad lagu magacaabo Nintendo, waxaana la iibsaday 83 milyan oo koobi. Game-ka saddexaad waa Tetris. waxaa la sameeyay sanadkii 1984 waxaana sameeyay nin lagu magacaabo Alexey Bachetnov. isaga waxaa laga iibsaday 100 milyan oo koobi. Kan labaadna waa GTA 5. waxaa la sameeyay 2013 waxaana sameeyay shirkadda Rockstar Games. waxaa laga iibsaday 155 milyan oo koobi. halka game-ka koowaadna uu yahay game-ka Minecraft. isagana waxaa la sameeyay oo soo baxay 2011 waxaana sameeyay shirkad lagu magacaabo Mojang. isaga waxaa laga iibsaday 238 milyan oo koobi. marka laga hadlayo da'da ciyaarta gameska, waxaa boqolkiiba maskaxdaada ku soo dhacaya in da'da ugu badan ee ciyaarta gameska ay yihiin dhalinyarada. laakiin maanta waxaan kugu kala saari doonaa da iyo inta ka dheesha boqoley. da walba boqoley ahaan inta dada oo ka ciyaarta gameska. marka la fiiriyo population-ka guud ama tirakoobka guud ee dadka ku nool dunida oo dhan waa 7.9 bilyan oo qof. dadkaas oo dhan 2.7 bilyan oo qof ayaa ka ciyaara gameska. tirakoobkan wuxuu ku xayndaaban yahay Mareykanka, dunida oo dhan ma aha. markii aan ka bilaabno kooxda koowaad, waa kooxda jirta eber ama kooxda dhalatay ilaa 18 jir. 18 jir ilaa qofku markii uu dhasho inta u dhaxayda dadka ka ciyaara gameska. waxaa lagu leeyahay waa 21% dadka ciyaara game-ka oo dhan. dadka ciyaara game-ka oo dhan Mareykanka da'da 18 jirka waxa ka yar waxay ka yihiin 21%. haddii aan si kale kuugu tuso, shantii qof ee Mareykan ee game ciyaarta, hal qof oo kamid ah dadkaas game-ka ciyaara ayaa 18 sano ka yar. kooxda labaad waa 18 jir ilaa 35 jir. 40% dadka ciyaara game-ka oo ay ka yihiin Mareykanka oo dhan. sidoo kalena waa dadka ugu badan ee ciyaara game-ka Mareykanka oo dhan. adduunkana sidaas ay ka yihiin. shantii qof ee kasta ee Mareykan ee game ciyaarta, laba qof oo kamid ah ayaa 18 jir ilaa 35 jir u dhaxeeya. kooxda saddexaad waa 36 jir ilaa 49 jir. iyagu waa 18% waana kooxda ugu yar ee ciyaarta gameska. kooxda ku xigta waa 50 jir ilaa wixii ka weyn. iyaguna waa 21%. waxay la mid yihiin 18 jirka kooxdii ka yareed. boqolkiiba meeqa ayaa dumara, boqolkiiba meeqa ayaa saraga. waxaan hubaa inaa kugu soo dhacaydo maskaxdaada boqolkiiba boqol inay raggu dumarka ka badan yihiin, laakiin waa dhanka kaliya ee dumarka iyo raggu Mareykanka iska agdhow yihiin. 45% waa dumar dadkaas game-ka ciyaara Mareykanka oo dhan, halka 55% ay yihiin rag. gamesku waa laba nooc. kuwana waxaa la iibsadaa cajalkooda ama si online ahaan ha loo iibsado ama si caadi ha loo iibsado. tusaale ahaanna waxaa ka mid ah GTA 5-ka. kuwana waxba lama iibsado marka hore, si caadi ayaa loo soo degsadaa oo waa free, sidaas ayaana lagu ciyaaraa. waxaa ka mid ah PUBG-ga iyo Fortnite-ka. kuwa cajalkooda la iibsado lacagta ugu badan waxay ka sameeyaan cajalka iibsigiisa oo waa garanay siday lacag ku abuuraan. laakiin kuwa kale siday lacag ku sameeyaan? kuwa sida free-ga ah lagu la soo dego ee sida free-ga ah lagu ciyaaro siday lacag ku sameeyaan? si aad u fahanto tusaale aan idin siiyo, waxaan isleeyahay dadka ku jira muuqaalada daawada waxay u badan yihiin dhalinyaro PUBG ciyaarta. isaga ayaana tusaale idinka siinaya. PUBG markaa ciyaarayso waxaa aragtay in UC-ga lagu furto oo RB-ga uu lacag yahay. kalarada qurqurxoon ee dharku waa lacag. haddii aad doonayso inaad hubka kalaraysato waa lacag. baabuurta kalarkoodu waa lacag. waxaasoo dhan oo lacaga dad ayaa iibsada. ayaga dhan dad ayaa iibsada. dadkaas iibsada ayayna ka faa'iidaan shirkadaha sida PUBG-ga oo kale ah malaayiin dollar. tusaale ahaan sidoo kale haddaan isii tusaale yar oo gaaban, game lagu magacaabi jiray Strike Force oo game-ka xabadda ah ama game-ka action-ka iyo dagaalka ee kuwoodii ugu horreeyay ka mid ah. midi ku jirta, hal midi oo yar oo ku jirta. qof ayaa maalin wuxuu ku iibsaday mididaas kalarkeeda. midida maaya, midida inuu kalariyo ayuu wuxuu ku iibsaday $61,000. hadda waxaan rajaynayaa inaad fikradda fahantay sida ay wax ku faa'iidaan shirkadaha game-kooda sida free-ga ah lagu degsado. waxay wax ku faa'iidaan iibsashada ay iibsadaan dadka game-ka ciyaara adeegyada game-ka ku jira. muuqaalkii maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. macluumaadkii ku saabsanaa gameskuna intaas ayay nooga dhan yihiin. haddii ay tahay markii ugu horreeyay soo boqoto channelka, halmaamin inaad subscribe saarto. like-tuna waa muhiim. siina share garay oo asxaabtaada la wadaag haddii uu ku cajabiyey. intii aan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa amaana Allah.